السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkeena Faalo. Waxaan jeclahay fiidiyogan in kugu soo gudbiyo sheeko gaaban oo aad u xiiso leh. Maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa wada socday gabar yar iyo aabaheeda iyagoo wada maraya buntada korkeeda ayaa aabihi wuxuu ka cabsaday gabadhiisii yareed oo aad ku jeclay inay kaga dhacdo buntada. Aabihi ayaa wuxuu ku yiri gabadhiisii yareed aabo qabso gacanteyda si aadan ugu dhicin buntada. Gabadhi ayaa waxay ku tiri aabo ma qabsanayo gacanta adiga tayda qabso. Aabihi ayaa waxa ugu jawaabay haddii aan taada qabto iyo haddii aad adiga tayda qabato waa isku mid. Gabadhi ayaa waxay si degdeg ah ugu jawaabtay ma ahan isku mid oo haddii aan taada qabsado waxa suurtagal ah inaan ka baxsado dabadeedna aan ku dhaco wabiga, balse haddii aad tayda qabato waxa suurtagal inaan ka baxsanan oo aad si wanaagsan ii qabato si aanan ugu dhicin wabiga. Aabihi ayaa wuxuu fahmay gabadhiisa waxay sheegayso inay saxsan tahay. Sheekadan ayaa ujeedkeeda ama macnaha laga leeyahay waxa ay tahay inaad haysato qof noloshaada sida gabadhaas yar aabaheeda uu qabanayo kaleeto u qaban karo.